ka waran haddii aan ku idhaahdo dagaalkii Pakistan ay ku qaaday Afghanistan dhowaan wuxuu qayb ka ahaa dagaalka shalay hore Mareykanka iyo Israa'iil oo iskarabsanaya ay ku qaadeen dalka Iran. Xisaab yar baan kuu dhiibayaa adigu isku darso kala gooso kabacdi waxa ay kuu soo baxdo qaybta commentiga la wadaag. bishiina dhaaftay February 15keedii afhayeen u hadlay Talibaanta Afghanistan oo magaciisa la yiraahdo Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in haddii Mareykanka iyo Israa'iil ay weeraraan Iran inayna Afghanistan indhaha ka daawan doonin oo ay u gurman doonto walaalahooda reer Iran ay caawin doonto Afghanistan iyo Talibaanna ay Mareykanka kula dagaalami doonaan Iran gudaheeda. 3 maalmood ka bacdi markii afhayeenku sidaas yiraahday ciidamada cirka ee Pakistan waxa ay duqeymo arxan darraha ay ka fuliyeen magaalooyin waaweyn oo ku yaala Afghanistan gudaheeda oo ay ugu horeyso caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. waxay bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan xisbiga dalkaas maamula ee Taliban. sidoo kale waxay duqeymo u geysteen ama ku burburiyeen xarumo ama dugsiyo quraan oo ku yaala caasimadda oo ay ku laayeen carruur halkaas quraan ku baranaysa. markii ay dabacday Taliban inay arrinkaa ka jawaabto ay ka falceliso Pakistan waxay ku dhawaaqday dagaal buuxa oo ka dhana Afghanistan. may jirin baahi waqtiga keeni kartay in Pakistan ay ku dhawaaqdo dagaalka intaas leh ama xaalad abuurka intaas leh ay samayso. laakiin qorshuhu wuxuu ahaa in Afghanistan laga mashquuliyo dagaalka ay ku ballan qaadeen inay qaybta ka noqon doonto Mareykanka iyo Israa'iil ay ku soo qaadi doonaan. tiina way dhacday Afghanistan waxay ka mashquulshay dagaalkii ay hore u ballan qaaday inay qaybta ka noqon doonto maadaama oo lagu furay furin cusub oo Pakistan ay ku dhawaaqday dagaal buuxa oo ka dhana Afghanistan.